function kan aad aragteen oo 1 over 3x ah x markay u socoto to 0 from the positive direction muxuu noqonayaa talow marka waad aragteen hadda toos hadaan u substitute garayno denominator waxayna siinaysaa 0 marka maxaan ka samayn karnaa waxaan factorize garayn karnaa malaha waxaan conjugate kiisa raadin karnaa malaha marka saa aragteen limitka x markay u socoto 0 from the positive direction of function kan leeyahay waa iska 1 over 3 times 0 soo ma aragteen marka booskii haddii aan galno 0 waxaa noo soo baxaya 1 over 0 1 over 0 na waxa weeyaan okay waa undefined laakiin waxa loo yaqaano kale infinity marka 1 over 0 infinity ayna siinaysaa siday noo siinayso 1 over infinity 1 over infinity waxayna siinaysaa 0 u fiirso 1 over infinity 0 ayna siinaysaa 1 over 0 na infinity ay ku siinaysaa marka relationshipkaas ayaa ka dhaxeeya function kan ayaan ka rabaa limitkiisa inaan raadino waa maxay limitka function kan 1 over x minus 3 x markay u socoto 3 from the positive direction markaasaad aragtiin waxay noqonaysaa limitka ayaan soo qaadanaynaa x waxay u socotaa 3 or from the positive direction marka hadda booski x haddaan 3 gelino waxay noqonaysaa 3 minus 3 oo iska ah 1 over 0 marka 1 over 0 marka limitka 1 over 0 na طبعا waxay la mid tahay infinity waliba positive infinity marka infinity saas oo qori kartaa hadaa rabtina positive aad raacin kartaa waayo 1 over 0 waxay la mid tahay positive infinity or infinity because negative infinity na way jirtaa function kan ayaan ka rabaa limitkiisa inaan raadino 2x over x plus 8 x na waxay u socotaa negative 8 x na waxay u socotaa negative 8 negative 8 ay u socotaa from the positive direction marka negative 8 ay waxay uga imanaysaa positive directionka marka waxaan leenahay is equal to limitka ayaan soo qaadanaynaa x waxay u socotaa negative 8 oo from the positive direction marka kor waxaan ku haysanaa 2x marka booskii x waxaan gelin karnaa 8 negative 8 aan kula jeedaa all over booskii x haddaan gelino negative 8 na waxay noqonaysaa negative 8 plus 8 marka denominatorkaagu 0 ayuuna siinayaa denominator wuxuuna siinayaa 0 kor horta waxaan ku haysanaa kor numerator waxaan ku haysanaa negative 16 hoosna waxaan ku haysanaa 0 marka u fiirso of course negative 16 all over 0 waxa weeyaan waxayna siinaysaa negative infinity marka negative waxay u noqonaysaa sababta negative infinity noqonaysa waxa way numeratorgeena waxa way negative markaas waxay noqonaysaa negative infinity hadduu numeratorgu positive yahay waxay noqonaysaa positive infinity